yaraan 12 qof ayaa ku dhintay dagaallo maanta ka dhacay degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. maleeshiyaadka ururka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa sida lagu soo waramay saakay aroortii weerar ku qaaday degmada, waxayna ka qabsadeen ciidankii maamulka gobolka ee degmadaasi haystay. mas'uul u hadlay isbitaalka Sterling ee degmada ayaa sheegay in isbitaalka la soo gaarsiiyay meydka hal qof iyo in ka badan 30 qof oo dhaawac ah. ugu yaraan 200 oo qof oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa ku dhintay xeebaha badda Mediterranean-ka. hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in sidoo kale 100 kale la la'yahay. dadkan ayaa saarnaa doonyo yaryar oo Sabtidii ka soo baxay dalka Liibiya iyaga oo doonayay inay gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga. tirada doonyahan ayaa ahaa 4, waxaana la la'yahay 3 ka mid ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 29 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah doonyahaasi Axaddii, waxaana la badbaadiyay 110 qof. laakiin labadii doon ee kale ayaa waxaa ku dhintay 116 qof, waxaana soo badbaaday 9 qof oo kaliya.